khilaaf xoogan ayaa ka taagan xerada nisa qaar ka mid a taliyaashii hay-adaasi ayaana gebi ahaanba xilkii iska casilay waxaa isa soo taraya iscasilaada qaar ka mid a taliyaasha hay-adda sirdoonka qaranka nisa oo madax uu yahay mahad maxamed salaad iyada oo weliba uu qoray gebi ahaanba warqadiisa iscasilaada 2 maalin ka hor ayay ahayd markii mahad salaad uu sheegay inay jiraan ama uu jiraba qalab markaasi sirdoon oo ku xiran xerada nisa kaasi oo gudbinaya macluumaadkiisa sirta lana wadaagaya taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iscasilaada mahad salaad lama sheegin in ay la xiriirto macluumaadkaasi laakiin sida ila wareedyo ay sheegayaan taliyaha nisa ayaa ku adkaatay gebi ahaanba in uu xaqiijiyo amniga magaalada muqdisho iyo guud ahaanba amniga hay-adaha dawliga ah goobaha ay ku shaqeeyaan iyadoo weliba tan iyo intii u dhacay weerarkii hotel Villa Rice mahad salaad ay ku socdeen su'aalo xoogan oo markaasi la xidhiidha waxa sababay ama u fududeeyayba in urka al-shabaab galaan Villa Rice oo ku yaalo xayndaabka madaxtooyada dhanka kale taliyaha hay-adda ayaa lagu helay cadeymo dilkii Ikraan Taxliil Faarax iyo weliba sidoo kale in uu wax ka ogaa qaraxyo ka dhacay magaalada muqdisho taasi awgeed ayaana gebi ahaanba taliyaha lagula taliyey inuu gebi ahaanba xilkaasi iska casilo isla markaana uu wadanka iskaga baxo waxaana arintaasi la sheegay inay kula taliyeen qaar ka mid ah mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya dawadayaal dhanka kale waxaa jirto macluumaad dheeri ah oo ayadana laga helayo iscasilaada taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa mahad salaad taasi oo ayadana la sheegay inay jiraan in qaar ka mid a mas'uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya ay ku cadaadinayaan taliyaha inuu gebi ahaanba isku sharaxo xilka madaxweynaha maamulka galmudug oo la filayo doorashada ee maamulkaasi in ay dhacdo sanadan 2023 dhanka kale warar intaasiba ka madax bannaan ayaa sheegaya in taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa mahad salaad iscasilaadiisa ay daba joogto kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ka soo laabtay wadanka Mareykanka sidoo kale tan la hor keenay cadeymo la xidhiidha dilalkii iyo weliba sidoo kale dilalkiisa tooska loo geystay taliyaashii ciidamada haramcad iyo weliba sidoo kale qaar ka mid ah mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ilaa xilligan aan la garanaynin ciidii shay loo keenay cadeymaha rasmiga ee ka dambaysa in dilalkaasi uu ku lug yeeshay taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa ayuu madaxweynuhu gebi ahaanba go'aansaday in uu bedelo sida ugu dhaqsiyaha badan mahad salaad sidoo kale tana uu xilkaasi uu magacaabo isla markaana uu ku wareejiyo Saadaq John oo dhawaanun aan ogeyn in loo guuriyay gabadha madaxweynaha dalka Djibouti oo shalay tuun soo gaaray magaalada muqdisho isla markaana lagu abaalmarinayo ama markaasiba madaxweynaha dalka Djibouti uu ka codsaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in gebi ahaanba xilka hay'adda sirdoonka qaranka nisa loo dhiibo wiilka gabadhiisa qabo dawdeel qodobadaasi waliba kuwa kale oo faahfaahsan ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa haday ta markaad kugu horeysay si share gare barnaamijka oo gaarsiin asxaabtaada kale aynu ku bilownay xerada hay'adda sirdoonka qaranka nisa waxa ka taagan buuq iyo waliba sidoo kale khilaaf xoogan kadib markii qaar ka mid ah taliyaashii hay'adda gebi ahaanba ay iscasileen iscasilaadan ayaa daba joogto dhowr qodob oo markaasi la xidhiidha midda koobaad oo ah in taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka nisa mahad salaad uu gebi ahaanba xilkaasi iska casilay iyadoo waliba wararku ay sheegayaan in taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka nisa mahad salaad loo wado 3 meelood oo kala duwan sida warar markaasi hordhaca lagu helayo dabcan 3daasi meelood waa aad ay u kala fog yihiin mana noqon karo ama 3daasi ma isku qaban karo laakiin waxa soo baxaya oo macluumaadkan uu tibaaxaya in taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka nisa mahad salaad uu gebi ahaanba ku fashilmay wixii loo igmaday ee ahaa sugitaanka amniga guud ee dalka gaar ahaan amniga magaalada muqdisho dhammaanba xarumihii dowladda ayaa khalkhal weyn waxa uu soo wajahay tan iyo weerarkii Villa Rice dhanka kaleeto waxa ayadna gebi ahaanba shaki weyn laga qabaa dad aad u tiro badan oo markaasi wata kaarka hay'adda sirdoonka qaranka nisa isla markaana waxay dadkaasi fulinayaan ayaa la sheegay falal amniga lidka waxayna inta badan aan ognahay 7 qof ee laga qabtay xerada markaasi Villa Soomaaliya ama dhahay gudaha xarunta madaxtooyada wadanka Soomaaliya in 2 kamida ay ahaayeen shaqaale uu dhawaan soo qoray taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka nisa isla markaana dadkaasi ay noqdeen 2 kamida dagaalyahanada ururka argagixisada al-shabaab arintaasi oo jirto baaritaan dheer kadib taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka nisa waxa uu keenay warar markaasi sheegaya in amniga xerada hay'adda sirdoonka qaranka nisa aan la isku haleyn karin xogtiisana la bixinayo sidoo kale tan loo gudbinayo taliyihii hore hay'adda sirdoonka qaranka nisa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir
macluumaadkan fahad uu sheegay taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka nisa 2 maalin ka hor ayay ahayd markii uu la wadaagay qaar ka mid ah warbaahinta hoose ee markaasi ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay inay jiraan qalab sirdoon oo dhageysanayo maqal iyo muuqaalba ka duubayo kaasi oo Fahad Yaasiin ula wadaagayo xogta si markaasi isdaba jooga waxaana uu sheegay sira badan oo markaasi uu hayay in gebi ahaanba loo gudbiyey xisbigii hore nabadii nolol waxaana ogeyn isbuucyo ka hor in gudaha madaxtooyada laftirkeeda ay jireen in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laga dhaadhiciyay in gebi ahaanba ay jiraan qalab sirdoon oo ku xidhan xafiisyadiisa goobaha markaasi uu ku caweeyo iyo goobaha markaasi ay ka dhacaan kulamada markaasi sida isdaba jooga oga dhaca Villa Soomaaliya waxaana arintaasi gebi ahaanba madaxweynuhu uu qaatay hadalkii uu soo jeediyay Mahad Salaad waxaana dubin uu ku bilaabay qaybo kamid ah madaxtooyada qaranka Soomaaliya Mahad Salaad ayaa iyadana sidoo kale 2 isbuuc ka hor waxa uu gebi ahaanba uu dab qabadsiiyay qaybo kamid ah xarunta hay'adda sirdoonka qaranka nisa ay ku shaqeyso asagoo ogol lahaa inay jiraan qalab halkaasi ku jira isla markaana cod muuqaal iyo wax walba u gudbinayo taliyihii hore ee hay'adda sirdoonka qaranka nisa dhanka kale arintaasi markii ay dhacday gebi ahaanba Mahad Salaad waxa uu garwaaqsaday in uu xilkani ku fashilmay isla markaana uu sii hayn karin in uu meelo markaasi si gacmayeena gebi ahaanba aysan suurtagal ahayn Mahad Salaad ayaana gebi ahaanba warqadii iscasilaada xalaynimo qoray isla markaana waxa uu gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lama sheegin iscasilaada Mahad Salaad in ay la xiriirto macluumaadkaas aan hore uga soo sheekaynay laakiin gebi ahaanba waxa uu sheegay inuu xilkii intaas gebi ahaanba kaga ekaanayo dhanka kale taliyaha ayaa lagu helay cadeymo dilkii Ikraan Taxliil Faarax ayadoo waliba aan ogeyn in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xilligii uu tagay wadanka Mareykanka la horkeenay cadeymo la xidhiidha cidii dishay Ikraan Taxliil iyo waliba sidoo kale inuu qayb ka ahaa taliyihiisa hay'adda sirdoonka qaranka nisa dhanka kale waxaa la horkeenay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qaraxyo waaweyn oo ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaasi oo markaasi uu ku lug lahaa taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka nisa intaasi oo cadayna marka madaxweynaha la horkeenay madaxweynaha waxa uu garwaaqsaday saaxiibtinimada dhow ee markaasi kala dhaxaysa Mahad Salaad waxaana gebi ahaanba uu kula taliyay in uu xilkani iska dhigo isla markaana uu wadanka iskaga baxo si nabada asagoo wax dhibaato ah aan loo geysanin sidoo kale daawadayaal waxaa iyagana jira macluumaad sheegaya in Mahad Salaad loo wado madaxweynaha maamulka Galmudug taasina ay gebi ahaanba dabada ka riixayaan mas'uuliyiin sare oo asaga ay isku hayb yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda ayayna u tageen qaar ka mid ah xildhibaano iyo waliba mas'uuliyiin sare oo markaasi ka soo jeeda gobolada Galmudug waxayna kula taliyeen in Mahad Salaad maadaama waxaan oo cadayna lagu hayo isla markaana uu ku fashilmay hay'addii sirdoonka shaqadii uu hayay inuu gebi ahaanba uu u tartamo xilka madaxweynaha maamulka Galmudug oo la filayo in ay dhacdo sanadkan gudihiisa haddaba xilkii uu ka tagay taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka nisa Mahad Salaad isla markaana uu xilkii waa baneeyay sidaan hore inagu sheegayba iscasilaadiisina waa uu qoray waxaana u gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya haddaba waa kuma ninka bedelaya isla markaana noqonaya taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka nisa ee markaasi bedelaya Mahad Salaad Saadaq John oo dhawaan guursaday gabadha madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa gebi ahaanba noqonaya taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka nisa dhawaan ayaan ogeyn in Saadaq John lagu soo celiyay saaxadiisii generaalnimo isla markaana jagooyin kaleeto ama markaasi la dalacsiin xagga markaasi darajada ciidanka ah gebi ahaanba uu sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayadoo dhanka kalena loo soo celiyay darajooyinkii hore uu uga qaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Saadaq John ayaa qayb ka ahaa abaabulkii iyo waliba sidoo kale dumintii qaranka 2022 ciidamadii weerarka ku soo qaaday magaalada Muqdisho kuwaas oo dagaal xoogan ee la galay ciidamadii ka amar qaadanay dawladda federaalka Soomaaliya ayagoo arintaasi ogol lahaa in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan mar labaad kursigan uu ku guuleysanin sidoo kale tana waxay ra'iisul wasaarihii oo markaasi ay isku hayb ama isku qabiil dhow ay ahaayeen Saadaq John ka dhaadhiciyay in uu arintani uu hoosta kala shaqeeyo waxaana ugu dambeyn soo baxday isku dhaca markaasi Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaarihii xilligaasi iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba Saadaq John ayaa noqonaya taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka nisa ee bedelaya taliye Mahad Salaad xaaladda ayaadna moodaa in qaar ka mid ah taliyaashii markaasi ka hooseeyay Mahad Salaad ay gebi ahaanba ayaguna xilkii iska casileen
maadaama saadiq john ay horey ula shaqeeyeen islamarkaana ay yaqaanaan markaasi qadiyadda qarannimo iyo sidoo kaleeto halka ay ka taagan tahay soomaalinimada. waxaana gebi ahaanba la dareemayaa dhaqdhaqaaq iyo weliba si kale culays xoogan oo markaasi ka dhashay kadib markii ay taliyayaashu maqleen macluumaadka la xidhiidha in saadiq john uu noqonayo taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka nisa. qaar ka mida aan dhehe taliyayaasha nabad sugidda iyo weliba booliska ayaana la arkayey ayagoo gebi ahaanba iska dhigay dariiskii iyo weliba sidoo kaleeto gebi ahaanba darajadii ciidanka ay ku lahaayeen. macluumaadkan ayaana ku tusaysa in taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka mahad salaad iyo weliba saadiq john aysan ahaynba laba nin oo markaasi la isku bedelan kara, islamarkaana mahad salaad uuba yahay midka iqarsada. waxayna taliyayaashii dareemeen culays xoogan oo markaasi kaga imaanaya dhanka dowladda federaalka iyo weliba sidoo kale saadiq john oon ognahay wixii uu ka geystay wadanka Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal macluumaadkaasi waxyaabaha ka soo kordho qaybaha dambe ee wararkeena ayaana idinkula wadaagi doonaa. dhanka kalena waxaa iyadna xiisad xoogan ka taagan tahay villa Soomaaliya kadib markii madashii qaran ee wadatashiga ay gebi ahaanba ku kala tageen qodobo la xidhiidha awoodda iyo weliba sidoo kale garsoorka. madaxweyne Siciid Cabdulaahi Deni ayaana gebi ahaanba iskaga kacay shirkii ay ku jireen ama ay markaasi uga socday villa Soomaaliya, isagoo awooddii iyo wax walba oo markaasi federalismka markaasi ee dastuurku uu kala qeexay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu gebi ahaanba isaga isku soo koobay. waxaan ognahay madaxda kaleeto ee madaxda maamul goboleedyada dalka in ay markaasi ku bedesheen awooddoodii iyo wax walba oo ay lahaayeen xil markaasi uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u sheegay in uu madaxweyne kasta oo maamul goboleed uu ku darsan karo sanad ilaa iyo 2 sano haddii ay saxiixaan qodobadan awoodda ee siinaya dowladda federaalka Soomaaliya, sidoo kaleetana garsoorkooda ay si toos ah u hoos imaanayaan magaalada Muqdisho. laakiin Siciid Cabdulaahi Deni ayaa gebi ahaanba arrintaasi iska diiday, isagoo sheegay inuusan mahad salaad iyo weliba saadiq john uusan gebi ahaanba hoos keenaynin taliyayaashiisa sirdoonka iyo weliba sidoo kale garsoorkiisa u gooniga ah. oon ognahay inay yihiin kuwo ka madax bannaan dowladda federaalka Soomaaliya. qaybaha dambe wararkeena ayaana idinku soo gudbin doonaa waxyaabaha ka soo kordha umurtan. tan iyo kulanti dambe waa inaga tahay sidaas iyo amaane Allah.